بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنه ونكسن داوديال halkan waa channelka nuxurka wararka aan kulana YouTube-ka waxaad ku soo dhawaataan barnaamijraadkeena qodobada ugu waaweyn ee aan daawadayaal ku soo qaadan doonana barnaamijraadkeena waxaa ka mid noqonaya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug una tartamaya kursi halkaasi yaala ayaa waxa uu la kulmay cadaadis kaga imaanaya Villa Soomaaliya iyo madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo warayaan daawadayaal kageena Cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay siyaasiyiintii sida weyn u mucaaradsanaa Farmaajo 4 sano ee uu xukunka hayay halkan ayaa daawadayaal kugu soo gudbi doona Villa Soomaaliya oo isbaara siyaasadeed u dhiganaysa kursiga uu damaca kaga jiro Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kaasi oo iminka u hanqal taagaya mid kamid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kolba hadii uu ku dhawaaqay in uu yahay musharax madaxweyne maxaa ku qasbaya in uu raadiyo kursi xildhibaan falaqan ayaa sidoo kale daawadayaal halkan idinku soo gudbi doona ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa Cabdiraxmaan waxay ku gacan siinayaan sidii uu kursigaasi u hanan lahaa haddii Cabdiraxmaan ay soo wajahdo guuldaro waxa ay saameyn kartaa mustaqbalkiisa siyaasadda Soomaaliya iyo hankiisa ku aadan in uu ku fariisto kursiga ugu sareeya ee dalka ee yaala Villa Soomaaliya wararkaas ayaan daawadayaal isla aanba qaadi doonaa faahfaahintooda hayeeshee intaanan guda gelin waxaan daawaday ka dalbanaya oo ka codsanaya in muuqaalkan like saarto la wadaagto asxaabtaada adigoo subscribe inoo saariyo channelka oo furan ee gambalaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag markaana daawaday waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarka soo daawatay oo intaasi ka sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya Farmaajo iyo kooxdiisa oo xeelad cusub u degay sidii ay kursiga u dhaafin lahaayeen Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame siyaasiga sida weyn u mucaaradsan siyaasadda Farmaajo ee hogaamiya xisbi mucaaradeedka wadajir laba cisho kadib markii Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame toos ugu dhawaaqay in uu u tartamayo kursiga xildhibaannimo ee beeshiisa madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa la sheegay iyadana toos u bilowday duulaankeeda kursiga hoob 138 ee uu doonayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame wixii arbacadii hore ka horeeyay dad badan oo kooxda madaxweyne Farmaajo ka tirsan ayaa u haystay doonista Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame mid warsuuqeed ah balse arbacadii ayuu tagay Dhuusamareeb markaas oo uu toos u shaaciyay musharaxnimadiisa kursiga hoob 138 wixii markaasi ka dambeeyayna waxaa la xaqiijiyay in ay madaxtooyada u xirxiratay sidii Cabdiraxmaan lagu dhaafin lahaa kursiga xalay ee guddiga doorashada heer federaal ayaa soo saaray warqad ay toos ugu abaareen kuraasta hoob 138 iyo hoob 71 oo ay sheegeen in loo baahan yahay in labadaasi kursi laga dhigo koonto dumar guddigii doorashada waa ay isku khilaafeen warqadaasi oo la sheegay in ay ka shaqeeyeen koox guddiga kamid ah oo weli gacan saar la leh Villa Soomaaliya xubno guddiga kamid ah oo aan la hadalnay waxay sheegeen in lagu heshiiyay in warqadda la bedelo oo hab qoraalka laga dhigo mid guud oo la hadlaya beesha dhexe ee kuraastaasi iska leh mar kale warqad ay shalay galab sii daayeen guddiga doorashada heer federaal ayay ku sheegeen in la rabo in beesha haysato hoggaanka maamulka Galmudug in ay saxdo qoondada haweenka ee ah in qoladii 3 kursi haysataba in ay hal kursi gabar ka dhigaan waliba warqadda guddiga waxaa lagu yiri lama aqoonsan doono doorashadaas lamana siin doono shahaadada xildhibaanada ilaa ay Galmudug ka soo saxayso qoondada dumarka guddiga si loo fahmo ujeedkooda iyo kuraasta ay u socdaan waxay Qoorqoor iyo guddiga doorashada Galmudug weydiisteen in kuraasta hadda jadwalaysan ee beeshaasi in la cadeeyo kuwa ay dumarka gooni ugu tartami karaan kuraasta hadda jadwalaysan oo ay beeshaasi leedahay kuwaas oo guddiga rabo in laba kamid ah laga dhigo dumar waa kursiga hoob 138 kursiga hoob 147 iyo kursiga hoob 71 kuraastaas mid waxaa ku fadhiya xildhibaan Mahad Maxamed Salaad mid waxaa ku fadhiya xildhibaan Saabir Nuur Shuuriye midna waxaa u tartamaya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame guddiga doorashada ee heer federaal gabadha madaxda uga xaqiijinta koontada dumarka dalka waa ka maqan tahay xubin kamid ah guddiga doorashada heer federaal oo aan la hadalnay wuxuu noo xaqiijiyay
in arrintani ay gacan weyn ku leedahay madaxtooyada Soomaaliya oo weli xubno badan ku leh guddiga dhexdiisa. qofka loo socdo waa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo la rabo in kursigiisa dumar laga dhigo ama inuu noqdo kursi dacwo ku furan tahay oo ilaa doorashada la isdaba socda ayuu yiri xubintaas. in guddigii doorashada heer federaal uu beegsi sameeyo oo la isticmaalo waa fadeexad weyn oo doorashada Soomaaliya dhex taalo ayay leeyihiin dadweynuhu. waxaa ka dhalan karta arrintan in qof kasta oo villa Soomaaliya rabin in loo adeegsado in ay kursigiisa ku dhagaan guddiga doorashada haddii ay ujeedo sax ah xambaarsan yihiin. waxay ahayd in ay arrintan ka hadlaan inta aan la jadwaleyn kuraasta, maadaama xilligaasi la soo saaro nooca uu kursiga noqonayo rag iyo dumar ayay leeyihiin dadkii ka falceliyay isku daygan. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa laga doorayaa waxa uu arrintan kaga falceliyo maadaama uu isagu yahay mas'uulka ugu sareeya ee iminka hagaya doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka 11 ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. doorasho ayaa maanta dhacday, waxaa la isweydiinayaa dadka ku soo baxay doorashadaasi. magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxaa maanta lagu qabtay doorashada kuraas ka mid ah xubnaha golaha shacabka Soomaaliya ee deegaan doorashadoodu tahay deegaanada maamulkaasi. doorashada oo lagu bilaabay kursiga Hoob 25 ayaa waxaa isku soo taagay laba musharax oo kala ah Maxamed Abuukar Cali Jacfar oo ah gudoomiyaha maamulka degmada Daynile iyo Xasan Cali Cismaan oo mar dambe isaga tanaasulay tartanka. Jacfar oo loo qaaday cod gacan taaga ayaa ku guuleystay kursiga Hoob 25 wuxuuna helay codad gaaraya 100 sida uu shaaciyay guddiga doorashada ee dowlad goboleedka Galmudug. waxaa ka tanaasulay tartanka Xasan Cali Cismaan waxaa ergadu hab gacan taaga ugu codeeyeen musharax Maxamed Abuukar Cali Jacfar waxaana ogol ugu codeeyay 100 ergada. waxaa maya ku codeeyay hal erga wax ka aamusay ma jiraan, sidaa daraadeed waxaa ku guuleystay doorashada kursiga Hoob 25 Maxamed Abuukar Cali Jacfar oo helay 100 cod ayuu yiri guddiga doorashada Galmudug oo shaaciyay natiijo hordhaca. sidoo kale kursiga labaad ee Hoob 81 oo ay hore ugu fadhisay Maryan Cariif Qaasim ayaa waxaa ku soo baxday Marwo Cadar Cali Maxamed Shalaqbeen oo heshay 71 cod. waxaa iyadana u tanaasushay Nasr Maxamed Dalabe oo kula tartami lahayd kursiga. kuraastan ayaa qayb ka ah doorashada xubnaha baarlamaanka ka soo galaya dhinaca dowlad goboleedka Galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb. si kastaba ha ahaatee doorashada golaha shacabka ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo ka hor 25 bishan inuu ku guda jirno ee February sanadkan cusub 2022 iyadoo kadib la dooran doono gudoomiyayaasha labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka 11 ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waqtigan waxa ay tahay mid ku socota hab booba oo madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa lagu dhaleeceynaya oo weliba lagu eedeeyaa in uu boobayo kuraasta ugu badan ee golaha shacabka ee baarlamaanka 11 ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. golaha shacabka ayaa waxa uu kulmiyaa xildhibaano gaaraya 275 xildhibaan kuwaas oo iminka doorashadoodu ay ka socoto deegaan doorashooyinka loo asteeyay inay ka qabsato doorashada. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo isaga bishii May 1 sanadkii hore 2021 lagu wareejiyay howlaha doorashada iyo amnigooda ayaa waxa uu iminka yahay isagu shakhsi ka mid ah shakhsiyaadka ugu firfircoon ee dhanka markii la eego ka aamusnaanta doorashada. waxa uusan ka hadlaynin habka ay ku socoto doorashada, waxa uu daawanayaa habka boobka ee uu Farmaajo ku hayo doorashada. waxa uu nasaacidayaa hab maamulka villa Soomaaliya isagoo la rumaysan yahay in uu doonayo in madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo uu ku soo noqdo villa Soomaaliya oo talada dalka mar kale lagu aamino. arrintan waxay leeyihiin dadka siyaasadda taxliiliya ma aha mid dhadhankeeda ay dareemi karaan bulshada Soomaaliyeed kuwaasi oo waqtigan u ooman isbedel buuxda oo weliba waxay doonayaan bulshadu nin waxtar leh oo dalkan u halgami kara siyaasadiisa difaaci kara arrimaha dibaddana hagaajin kara oo Farmaajo dhaama maadaama 4 sano ee la soo dhaafay la dhadhamiyo macaanta uu xambaarsan yahay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo kaas oo iminka si qaldan ama si sharci darro ugu fadhiya kursiga yaala villa Soomaaliya. dhawaan waxaa u gooday muddo 1 sano oo sharci darro
iminkana sanadkii labaad ayaa waxa uu ka qaatay maalmo. madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo waxaa mar walba lagu eedeeyaa in uusan doonayn doorasho dalka ka dhacda xor iyo xalaal ah, cadaalad ah, daahfuran, isla markaana ay u dhan yihiin dhammaan saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo sidoo kaleba dadka daneeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya. musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya ayaa iyagu waxa ay noqdeen kuwa afkoodu juuqu gabay oo weliba waxaa lagu eedeynayaa inaysan ka hadlaynin doorashada. waxa ay galeen ololaha ay ku doonayaan inay ku soo saartaan xildhibaano iyaga taabacsan oo codka siiya marka la isugu tago howlka doorashada ay ka dhaceyso. doorashadaas oo lagu dooranayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. lama oga xaalka sida uu noqon doono, ha yeeshee bulshadu waxa ay doonayaan in isbeddel uu yimaado, Farmaajo dalka laga masaafuriyo, madaxweyne cusub la doorto, natiijada doorashadana ay noqoto mid la aqbali karo oo dagaal aysan sababi karin. si walbay ahaataba bulshada waxaa la soo tabinayaa in dareenkooda iyo fikirkooda aanan la tixgelinin, balse ay soconayso aragtida Farmaajo. halkaas waxaa laga dhadhansan karaa keligii taliyaha halka uu dalku u wado waa sida ay tibaaxayaan dadka siyaasadda taxliiliya. guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa barnaamijyada janalka Nuxurka Wararka aan ku leenahay YouTube-ka. muuqaalka like inoo sar subscribe inoo sar janalka Furaga Mararka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal inta dib isugu kulmi doono nabadgelyo.